bismillaahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada cashar aan uga hadli doono hadduu ilaah yiraahdo java. Java waxay ka mid tahay object oriented programming languageska. sidoo kale Java waa luqad high level ah. sidoo kale Java waxaa lagu dhisaa mobile applications iyadoo la isticmaalayo Android. sidoo kale Java waxaa lagu dhisi karaa desktop applications. waxyaabo fara badan oo Java lagu qaban kara ayaa jiro. sidoo kale Java waxaa loo isticmaali karaa back end. cawada waxaan rabaa in Java aan waxyar idinka tuso sida aad ugu dhisi karto desktop applications adigoo isticmaalaya Swing. Java Swing markaad isticmaalayso laba siba waad samayn kartaa in aad installation Eclipse-gaada ama IDE-gaada aad ugu sameyso Swing-ga iyo window applications-ka aad rabto, ama inaad adiga code-kooda aad qorto. ana waxaan u isticmaali doonaa qaab fudud oo drag and drop ah. sidee marka ugu horeyso waxaa soo kacsanaysaa Eclipse-gaada, waa kan oo ii soo kacsan yahay. waxaan leeyahay kadib file, kadib waxaan leeyahay new, kadib waxaan tagayaa meesha ugu hooseysay ah other. marka other tago waxaan ka tagaa window builder. waxaan kasii tagaa Swing Designer. markaa tago kadib waxaan ku dhufanaa application window. Japplet waa isticmaali kartaa, Jframe waa isticmaali kartaa, laakiin ana hadda waxaan isticmaalayaa application window. kadib waxaan leeyahay next. markii uu page-kan keeno waxaan u baahanahay in window application-kayga meeshii aan ku save garan lahaa inaan doorto. waa kana waxaan dooran doonaa hadduu ilaah yiraahdo login resource, kadibna waxaan leeyahay enter. kadib meeshan waxaan package-ka waxaan iska qaadanaa kan default-ga ah. magacan waxaa waaye magaca uu qaadan doono window form-kayga. waxaan isaga bixinaa form 1 magaca rabtida u baxsan kartaa. kadib waxaan leeyahay finish. waa kan glass wuxuu ii abuuray oo form 1 ah. sidoo kale Jframe-kii uu ii abuuray waa kan. ana marka meeshaan inaan wax ka bedelo ma rabo. haddii aan u baahdo waxaan ku dari doonaa, waxna waan ka tiri doonaa, laakiin hadda marka ugu horeyso waxaan rabaa si fudud oo drag and drop ah inaan idin tuso. waxaad tagay hadda waxaa ii dooran source. sida arkayso waxaad dooranaysaa design. waa kan design markaan dhaho waxaa ii soo baxay window-gii. hadda haddii aan run dhaho waxaa ii soo bixi doona window oo waxba aan la socon. waa kana ma arkaysaan ayaan rajeynaa. waa kan tamam. hadda meeshan way igu yartaa soo ma waxyar inaa weyneysto markaa rabo. meeshan waxaan leeyahay double click, waxaan oo dhan ayuu iga qarin doonaa. waa kaas waxyar way ii weynaatay. kadib window-geeya ayaan weyneysanaa. waa kan sidaas ayaan u jiijiidaa. waxaan rabaa marka in buttonska iyo text field-ga waxyaabahaas inaan kusoo darsado. intaan kusoo darsan marka hore waxaan tagaa meeshan absolute-ka ah, click ayaan leeyahay. halkaan imaana waa kana mujada, kadib click aan leeyahay. markaasaan click u dhaho waxaan rabaa marka in background-ka ka bedelo. background-ka markaan ka bedelayo marka ugu horeyso waxaan tagaa properties hour. waa kana qaybtaan muuska hadda aad arkayso. waxaan ka tagaa background. waa kan colorskan wixii aan rabo aan dooran karaa. waa kuwana
system color waa kana, swing colors, named colors iyo web save colors. أنا waxaan rabaa marka waxaa cajibiye colorkan oo dark gray ah kan ayaan dooranaa markaas colorka arabto ayaa ka dhigi kartaa hadaa rabo waxaan ka dhigi karaa green waa kana waxaan ka dhigi karaa green hadda hadii aan randho waxaan ka dhigi karaa green waa kaasa sidoo kale waxaan ka dhigi karaa haddii aan rabo cadaan white waa kaas inta badan cadaanka indhaha uma fiicna marka colorkii hore ama intaa tegi karaa waa kuwaana ayi color hadaa rabo colorkan scroll barka camal ah ayaan ka dhigi karaa waa kan color iska macquula markaas aan ka dhigto marka waxaan u baahanahay marka inaan kusoo daro windowgeyga text field soo qaada halkan imaana waa kan kadib saan ayaan u jeedinaa meesha raba ayaan geysanaa kan koowaad waa kan mid kale soo qaadi karaa iyadan waa kan sidaan ayaan u jeedinaa sidoo kale haddaan rabo waxaan kusoo dari karaa radio button magaca rabaan bixin karaa hadda markay shaanta magaca markaa ka bedelayo waxaan tagayaa propertieska sidoo kale waa kana new radio button magaca waan ka tiraa waxaan dhahaa female mathalan ama male waa kaasa halkan ayaan geli karaa kadib mid kale ayaan soo qaadanaa hoostiisa kii hore waxaan dhahaa soomaha male kanna waxaan leeyahay marka female colorka backgroundka waxaa raba ayaan ka dhigan karaa sida haddaa aan idin sheegaba waa kana waxaan tagaa propertieska sidoo kale kan ayaan tagaa madow ayaan ka dhigi karaa farta hadda lama arkaya soo ma fontiga Times New Roman ayaan ka dhiganaa waa kan waxaan leeyahay bold waxay iga dhigtaa 12 kadibna waxaan leeyahay 10 sidoo kale farta waa madow halkan ayaan tagaa kadib waxaan ka dhiganaa farta cadaan kaas way soo muuqataa kana sidaas oo kale ayaan u bedeli karaa haddii aan rabo hadda haddii aan kan ran dhaho waxaan arkaynaa waa kan inta qoraalka rabaa ku qori karaa kana waa kan kana saana u dooran karaa ama kan saana u dooran karaa okay soma waxaa kaloo kusoo darsan karaa button waa kan buttonkan sidoo kale asina magac aan rabo ayaan u baxsan karaa waa kan new button waxaan leeyahay show message waxyar waan weyney karaa asigana intaan oo kale macquul waay farta waxbaan ku dari karaa waxaan ka dhigi karaa Times New Roman bold ka dhig 16 ka dhig waa kana sidoo kale waxaa ka dhigtaa color macquula madow ka dhig okay hadda daan ran dhaho sidoo ay noqona waa kan madow soo colorkan weli waa ka bedeli karaa hadda marka aan click dhaho waxba isma bedelayo soo ma waxaan rabaa markaan click dhaho in message oo ii soo baxo marka system waxaan samayn karaa marka waxaan u baahanahay halkan aan tago inaan double click dhaho oo kaliya sida ugu fudud aad samayn karto
kadib wuxuu keenay koodkiisa sourciga kadib halkaan tagaa waxaan rabaa marka message inuu ii soo baxo ma waxaan dhihi karaa j option dot show message dialog kadib waxaan leeyahay kan parameterka hore waxaan ka dhigaa null kan kalena waxaa waaye messageka aan rabo inuu ii soo saaro waxaan ka dhigaa tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay mathalan hello world kadibna waxaan leeyahay semicolon j option pane show message dialog show message dialog sama hadda waxaan ku laabanaa marka designkii laakiin hadda markii hore haddii aan compile aan run aan dhaho hadda halkaan waa kan kana waa kan kana waa kan kana hadda markii kan haddaa click dhaho waa inuu isoo baxaa qoraalka hadda aan qoraayo ee ah hello world waa kaas waxaan rajeynayaa in wax yar aad ka fahantay cashirka wixii hadda ka dambeeyana aad ku dhiirato inaad samayn karto desktop application macquul ah oo shaqeynaya insha allah cashirkan halkaan ayaan kusoo koobaa cashira taxanaha ayaan ka dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kuwa kale ayaan soo geli doonaa insha allah intaan cashirkan cashirka xiga aan ka gaari doono waxaan idin leeyahay fi amaan illah